markale duhur wanaagsan dhageystayaal waa isniin 28 bisha koowaad ee January sanadka 2019 Cabdullaahi Xuseen Canshuur ayaa warkeena duhur soo saaray Maxamed Shuuriye Nuur iyo anigoo Farxiyo Xuseen ayaa idila socodsiinayna markana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. xildhibaan cusub ayaa golaha shacabka kaga soo biiray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kadib doorasho halkaasi ka dhacday. Axmed Cabdulqaadir ayaa goordhow arintan laga wareystay. waxaa maanta magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ka dhacay doorasho kursi banaan oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ee dawladda federaalka Soomaaliya oo horay uga geeriyooday Allaha u naxariistay xildhibaan Khaliif Duuray waxaana ku tartamay 4 musharax walow 3 kamid ah goobta ay ku maqnaayeen guddigana sababta ay ugu maqnaayeen ay u sheegeen in ay ku wargeliyeen inay imaadaan balse iyagu ay ka diideen musharaxiintaasi oo kala ahaa Cabdullaahi Sheekh Maxamed iyo Cabduqaadir Sheekh Maxamed iyo Xasan Macalin Ibrahim Gaabshaal loo yaqaano iyo Isaaq Khaliif Ibrahim oo ah xildhibaanka maanta booskiisa la buuxinayay dhintay wiil uu dhalay Allaha u naxariistay codadkuna waxay u kala dhaceen sida tan Cabdullaahi Sheekh Maxamed oo isagu ku guuleystay maanta doorashadii ka dhacday Baydhabo waxa uu helay 35 cod Cabduqaadir Sheekh Maxamed Abdulna isagoo maqan waxa uu helay 2 cod Xasan Macalin Ibrahim oo maqanna ciduu codeysay ma jirto Isaaq Khaliif Ibrahim oo ah wiilka dhalay Allaha u naxariistay xildhibaanka maanta booskiisa la buuxinayay isagoo maqanna waxa uu helay 2 cod hal codna waa halaabay guud ahaanna ergadii codeysay tiradoodu waxay ahaayeen 44 laba ka midna ma aysan imaan 42 ayaa codeysay codadkana sida ay u kala heleen. waayahay Axmed guddiga doorashooyinku ma sheegeen sababta dadkaasi maqan iyagoo ay u maqan yihiin iyo qaabka ama sababta loogu codeeyay iyagoo maqan waxay sheegeen in dadkaasi ay baxsadeen lacagtii 5,000 ahayd ee qofka musharaxa loogu talagalay inuu bixiyo sidoo kalena ay qaateen shahaadooyinkii ay siiyeen balse ay sheegeen in la isku madbaafay qaabka soo xulidda ergada musharaxiintuna aysan xaq u lahayn in iyagu ay erga keenaan uu keenay malaaga guud ee beesha maanta iyadu xildhibaanka booska banaan buuxinaysay oo ah beesha boqol hore weliba jifada hoose marka loo eego waa mid waxaana dabcan maanta ay dhacday doorashadii waxayna sheegeen in ay ka diideen qaabka ergada loo keenay sidaana ay sheegeen inaysan ku iman. wariyaheena Axmed Cabdulqaadir Yarow ayuu ahaa warkaasi oo faahfaahsan wararkeena iyo barnaamijyadeena ayaad ku maqli doontaan. dilka loo geysto dhalinyarada kaxaysa gaadiidka mooto bajaajta ayaa Muqdisho ku soo korortay iyadoo xalay la dilay mid ka mid ah darawaladaasi. Yunis Duraan Cali ayaa ka waramaya. inta badan bilihiina dhaafay iyo bishan aan ku guda jirno ayaa magaalada Muqdisho waxa ku soo kordhiyay dilalka loo geysanayo darawalada kaxiya gaadiidka mooto bajaajta. dhowr toddobaad muddo laga joogo ayaa degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir gaar ahaan isgoyska degmada waxaa mid ka mid ah darawalada kaxeeya mootada waxaa dilay askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya waxaana la sheegay in dilka kadib uu askariga goobta iskaga baxsaday. sidoo kale ma jirto cid ka hadashay dilka loo geystay wadaha mooto bajaajta oo ka tirsan mas'uuliyiinta dawladda iyadoo dad badan oo Soomaaliyeed uu dilka ka dhex guuxayo loo geystay wiilka dhalinyarada ah kuna shaqaysanaya mootada ayaa xalay abaaro 10 fiidnimo ama 4 saac oo habeenimo waxa uu dil ka dhacay inta u dhaxaysa isgoosyada dabka iyo shaqaalaha. dilka ayaa waxa loo geystay wiil ka xeenayay mooto bajaaj waxaana ka dambeeyay dilka loo geystay wiilka mid ka mid ah askarta ciidanka booliska Soomaaliya. waxaa la sheegay in dilka uu ka dhashay muran soo kala dhex galay wadaha mooto bajaajta iyo askariga taana ay sababtay inuu askariga uu rasaas ku furo dhaawac ka soo gaaray rasaasta haleeshay darawalka mooto bajaajta ayaana la tilmaamay inuu u geeriyooday. magaca marxuumka dilka loo geystay xalay ayaa qoyskiisu inagu sheegeen Cabdulqaadir Aadam Deeqa Axmed oo ah xaaska uu ka geeriyooday ayaa waxay idaacadda kulmiye uga warbixisay sida ay wax u dhaceen.
bajaajyada wiilkii soo qaaday wuxuu bajaajka oo safka jirta uu soo galay safka wax yar oo yataan hormaray gadaal uu noqonaayana wuu ku tiriyo sidaan dilay daaruka markaa hore loo dhaafay dadkana shaqaalahan aan la meelahaas ay waayeen dadka intaan meelahaas waa meesha lagu jira wiil soo qaaday isbitaalka uu keenay marka bajaajkana way xareysteen ayaga qaateen ninkina kulay way xireen qaaya dambeysay hadda qaadir aad qoran hal wiil goono dhalay iyo sidoo inuu haayo kulay bajaajka soo buu ku qarqaraabay jiray oo soo helay keenay oo kale aan salaam وزارة وذكرناها مركز أبو ساقط القصة سأتكلم إلهي جاءت وعلى لها كل الله تعالى قاعد كل يمكن استدعاء يلا نجنا دعاء قدر سجونا يمكن أتكلم عليه نوشين نجلس كل ساك هذه بعدين أسري وأنا وقال سيدي لقي ميتي أنا عند السودان كتقاعدنا كل ما كانوا جوا كل مدونا dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxay isweydiinayaan waxa kordhiyay dilalka loo geysanayo wadayaasha mootobajaajta. Aad ma santaa Yunus Duran Ali. Imaaraadka Carabta ayaa kumanaan askar waxa uu tababaraya Somaliland. qaar ka mid ah wakaaladaha wararka ee luqadda Carabiga wax ku qora ayaa sheegay howlgalka Imaaraadka ee Somaliland in waqtigan la ballaarinayo iyadoo saldhig military ay ku leeyihiin magaalada Berbera. sidoo kale waxaa la soo warinayaa in diblomaasiyiin Imaaraadka ah laga soo xigtay in Somaliland ay u tababarayaan askar gaaraysa 15,000. waxay Imaaraadku qayb ka yihiin dawladaha danaynaya in arinta Somaliland ay markaasi u dhabaxaraan waxaana dhawaan ay ka hirgeliyeen halkaasi saldhig military gaar ahaan magaalada Berbera. markaana aan eegno wararka magaalada Garowe kulamo u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxda maamul goboleedyada iyo madaxdii hore ee dalka soo martay ayaa wali waxa uu ka socdaa magaalada Garowe ee Puntland. Cumar Maxamed Soomana ayaa ka waramaya. wararka laga helayo magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa sheegaya in saacadaha soo socda la filayo in la soo gabagabeeyo kulan xasaasi ah oo gudaha madaxtooyada uga soconayay madaxda ugu sareysa maamul goboleedyada dalka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. wararka lagu kalsoon yahay ee ka imaanaya magaaladaasi ayaa sheegaya in kulanka intiisa badan diiradda lagu saarayay sidii loo dhameyn lahaa khilaafka iyo madmadowga soo kala dhexgalay mas'uuliyiinta dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. kulankan uu soo qaban qaabiyay Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland ayaa intiisa badan xubnaha ka qaybgalaya ee ku kala durugsanaa siyaasadda dalka waxaa xilligan ay u muuqataa inay isu fahmeen sidii dib loo bilaabi lahaa wada shaqayntii iyo xiriirkii ka dhaxeeyay dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. marka shirkan uu soo dhamaado kadib ayaa xubnaha ka qaybgalaya waxaa la filayaa inay warbaahinta la hadlaan ama ay soo saaraan warmurtiyeed ku qotoma nuxurka qodobada ugu muhiimsan oo ay ka wada hadleen madaxda ku kulansan magaalada Garowe. kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamo kala gaargaar ah oo 24 saac la soo dhaafay gudaha magaalada Garowe ku dhex marayay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. sidoo kale kulankan ayaa waxaa qayb ka ahaa siyaasiyiin hore xilal uga soo qabtay gudaha dalka sida madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaareyaal. si kastaba ha ahaatee tallaabada qabashada kulamadan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay tahay markii ugu horeysay tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu soo shacbaxay khilaafka soo kala dhexgalay dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay si toos ah miiska wada hadalka isugu soo horfariistaan. mahadsanid Cumar Maxamed Soomane. daacishta Soomaaliya ayaa soo bandhigtay baahi ay u qabaan dhaqaatiir ajaaniba sida warkan uu ku eegayo waryaheena Cabdullaahi Xuseen Canshuur. daacishta Soomaaliya ayaa waxay dalbatay dhaqaatiir ka soo jeeda wadamada reer galbeedka taasoo ku aadan inay yimaadaan Soomaaliya si ay adeeg caafimaad oo bilaash ah ay ugu fuliyaan gudaha Soomaaliya si gaarana ay u helaan gargaar caafimaad oo sax ah ciidamada ama dagaalamayaasha kooxda Daacish. afayeen u hadlay Daacish oo iska soo duubay muuqaal soconaya muddo 15 daqiiqo ah ayaa sheegay in dhaqaatiirta ay u baahan yihiin ay ugu horeeyaan kuwa xirfadda sare leh ee qalimada fulin kara. waxaan goordhow booqanay tuulooyin dhowr ah halkaas oo dadka ku nool inta badan ay yihiin xoolo dhaqato waana dad danyar ah oo aanan heli karin xarumo caafimaad ayuu hadalkiisa raaciyay ninkan u hadlay Daacishta Soomaaliya oo wajigiisa daboolnaa xilliga uu muuqaalka duubay. sidoo kale Daacish ayaa ku eedeysay dawladda Soomaaliya
in ay dayacday doorkii uga aadanaa caawinaadda iyo garab istaagga iyo gargaarka loo fidiyo dadka iyagu beeralayda ah ee ka fog magaalooyinka. afhayeenka u hadlay daacish ayaa waxa uu ugu dambeyn uu sheegay in ururkoodu ay ka go'an tahay inay dalka keenaan dhakhaatiir iyaga iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ba ay u siman yihiin. waxay daacish sidoo kale ay ku sheegtay hadalkoodan in muddooyinkii ugu dambeeyay ay fuliyeen gargaar ay u sameeyeen 200 oo ruux. dagaalamayaasha daacish qaybta Soomaaliya ayaa waxa ay inta badan ay sheegeen in haatan ay u baahan yihiin dhakhaatiirtaas. inkastoo ay tahay kooxda daacish koox Soomaaliya ka dagaalanta ayaa haddana waxay dalbanaysaa dhakhaatiir u dhashay wadamada reer galbeedka. 250 dagaalame oo ka tirsan kooxda daacish ayaa la sheegay in muddooyinkii dambe qudhooda lagu dilay gudaha Soomaaliya, taas oo inta badan ay sababtay dhimashadooda. gargaar caafimaad oo sax ah oo aynan helin inta badan kooxda daacish ee gudaha Soomaaliya ku dhimatay. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta u ambabaxay dalka Kenya. wasiirka arrimaha dibadda Kenya iyo mas'uuliyiin kale ayaa Ra'iisul Wasaare Kheyre iyo wafdigiisa waxay ku soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya ayaa yeelanaya kulan ay uga wada hadlayaan adkeynta xiriirka labada dawladood iyo ballaarinta iskaashiga dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo xiriirka istiraatiijiyadeed ee labada dawladood. Ra'iisul Wasaare Kheyre iyo wafdigiisa ayaa la filayaa in ay kulamo gooni ah madaxda ugu sareysa dalkaasi kala yeelan doonaan arrimo ay ugu horeyso dhibaatooyinka ciidamada Kenya ay ka geystaan gobolada Jubbooyinka iyo Gedo ay ka howlgalaan. shirkii golaha wasiirada ee toddobaadkii la soo dhaafay ayay ku sheegeen in 28 bishan oo ku beegan maanta dawladda Kenya lagala hadli doono dhibta shacabka Soomaaliyeed ay ku qabaan ciidamada Kenya ee jooga gudaha Soomaaliya. isbitaalka Jasiira ee magaalada Muqdisho ayaa soo kordhiya qalimo horle iyadoo qalimadaasi ay fulinayaan dhakhaatiir ajaniba sida warkan uu ku hayo Axmed Maxamed Ibraahim. munaasabad kooban oo lagu dhex qabtay gudaha isbitaalka Jasiira ayaa lagu shaaciyay in isbitaalkaasi uu bilaabi doono maalmaha soo socda qalimo casri ah kaasoo dalka dibadiisa loo aadi jiray. qalimada ayaa lagu sheegay in lagu bedeli doono lafaha burburay, jilibka iyo sinta. dhakhaatiir ka timid dalka Hindiya isla markaana muddo 10 cashaha joogi doona Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay fulin doonaan qalimadan. Dr. Debek oo ka mid ah dhakhaatiirta ka timid dalka Hindiya ayaa sheegay and we have come here to see the patients who need treatment. Soomaaliya waxaan u nimaanay inaan ka fulino qaliimada lafaha burburay iyo kuwa u baahan bedelida sida simaha iyo jilbaha iyo waliba lafdhabarta. dadka Soomaaliyeed qaliimadan dalka Hindiya ayay u imaan jireen oo halkaas ayaan ku dabiibi jirnay, balse maanta waxaa suurta gashay inaan Soomaaliya gudaheeda aan ka fulino. bukaanada haatan aan aragnay waxay u badan yihiin xanuunadooda kuwa lafaha burburay, bedelida jilbaha, simaha iyo waliba lafdhabarta. And of course with the injuries, gunshot injuries, they are also coming up with those problems. madaxa caafimaadka isbitaalka Jasiira Dr. Cabdishakuur Maxamed Axmed Murweyne la hadlay ayuu sheegay in isbitaalka Jasiira uu maalmaha soo aadan fulin doono qaliimada lagu sameynayo lafaha burburay iyo waliba kuwa lagu bedelayo simaha iyo jilbaha. dhakhaatiirtaas oo dalabkooda oo aad uga badnaa bukaanadeena oo maalinba lagu soo laalaabanaysay. dhakhaatiirtaas oo kala ah dhakhtarka lafaha oo bedelida jilbaha iyo sinaha iyo dhammaan qaliimada kala duwan ee lafaha ku takhasusay, iyo dhakhtar spinal surgery ah oo lafdhabarta iyo iban neerfaha oo ku jiro uu sameynayo. dhakhtarka saddexaad asigana waxa weeyaan dhakhtarka qaliinka hepatobiliary beerka iyo burooyinkiisa iyo maxaa la yiraahdaa xamiitida. marka dhakhaatiirtaas maanta ayna soo gaareen insha Allah muddo 10 iyo dhowr bari ay joogi doonaan isbitaalka, waxayna fursad u tahay insha Allah inay ka faa'iideystaan ummadda Soomaaliyeed ee caafimaadka baahida weyn u qabaan oo muddo dhowr intaas soo jeer ay badanka aadaan dibadaha oo fiisooyinka iyo wixii iska adeegayaan. codkaas waxaa u dambeeyay warkii waryaheena Axmed Maxamed Ibraahim. idaacadda kulmiye ee Muqdisho ayaadna weli nagala socotaan. wararkii dibadda ayaa inoo harsan.
duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ayr Jabuuti u doono kooxda Ikhwaanul Muslimiin ayaa ugu baaqday kooxaha mucaaradka ee ka jira dalka Masar inay u midoobaan sidii meesha looga saari lahaa xukunka militariga ah ee dalkaasi Gambiga ku qabsaday sanadkii 2013 hadalkan ayaa lagu soo beegay munaasabadii 8aad ee ka soo wareegatay markii dalkaasi uu ka dhacay kacdoonkii lagu riday madaxweynihii hore ee Masar Xusni Mubaarak Ikhwaanul Muslimiinku waxay sheegeen in mar kale loo baahan yahay kacdoon meesha looga saaro xukunka militariga ee uu hogaaminayo madaxweyne Cabdilfataax al-Siisi Ikhwaanul Muslimiin oo muddo ahaa urur saameyn weyn ku leh dalka Masar ayaa diiday inay aqoonsadaan doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne al-Siisi dowladda Cabdilfataax al-Siisi ayaa ururka Ikhwaanul Muslimiin u aqoonsaday urur argagixiso lagana mamnuucay gudaha dalka Masar ugu dambeyntiina dhageystayaal baarayaal ka socda qaramada midoobay oo qaabilsan baarista dilkii wariye Jamaal Khashoggi ayaa gaaray magaalada Istanbul ee dalka Turkiga kooxdan ayaa baaritaano caalami ah ku sameyn doona qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul halkaasi oo ah goobtii lagu dilay wariye Khashoggi Agnes Kalamaad oo hogaaminaysa kooxdan ayaa isbuucii la soo dhaafay sheegtay in aysan wax jawaab ah aysan ka helin boqortooyada Sacuudiga kadib markii ay weydiisteen galitaanka qunsuliyadda baaritaanada ay qaadan doonaan muddo isbuuc ah iyadoona sidoo kale lagu wado in kooxdan ay booqasho ku tagaan Sacuudiga si halkaasi ay uga soo sameeyaan baaritaano la xiriira dilkaasi wariye Jamaal Khashoggi oo ka howlgali jiray wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa 2 Oktoobar ee sanadkii hore lagu dhex qaarijiyay qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul gudaha warkii doornimo ee aad kala